وما سقدرتي ضد ما ماشى العكو قادنا وراقد دلشada waxa lagu kala qaadanaa 2,000 ninba hadda imaani waa loo hagaajin hadda malaangada dambu ka bixi qof kasta oo Kenyan wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xuquuqdiisa balse dadweynaha Garissa ayaa waxay cabasho ka muujinayaan habka loo helo warqadaha dhalashada iyo dhimashada waxayna sheegeen inay sanado badan sugaan markay xareeyaan warqadahan iyadoo caruurta iskuulada aysan aadi karin dhalasho la'aan ama aysan imtixaanka isdiiwaan gelin karin dhalasho la'aan ururka dhalinyarada Garissa waxaan ka cabasho ka badnaa ofiiska waraaqda dhalashada Garissa meeshan waxa ka jira wax aan weliga aanan arkin aanan maqlin ardayda kamid oo galaaska 8aad oo Shanbari ay ka dhimantahay waqtiga imtixaanka KCB lis diiwaan gelin lahaa oo waraaqda sanadka hore loo soo xareeyay baa ofiiskan ku dhex dhuntay inay ofiiskan talaabo laga qaaday shaqaalahan joogan meeshan cilada ka jirta dadweynaha laga qancay meeshan waa lagu rafaaday waalidiintu way ku rafaadeen weelmii ardaydu way ku rafaadeen dhibkan haastana waa dhib dawladda amar ay bixisay inay waraaq dhalasho cunug la'aanteed aan la geen karin iskuul KCB aan la diiwaan gelin karin waxaan ka codsanayaa markay maxalli jira imaano dhalashada markay naga dhuntay nooma sameynayna raka markasta maxalli jira way nagu cadaadinayeen waxaan laba bilood inuu seen raadinayaa marka waxaan ka codsanayaa inay degdeg igu soo siiyaan dhalashadeeda MBA leedahay wax ka hooseeyo madaxna way leedahay waxaan lacag lagu kala qaadanay oo irida marka soo joogto qofka xafiiska shaqayda ka hor imaani oo kuleeyahay lacag 3,000 keen marka horena lacagta lagala qaado kun ku jira nagala qaade haddana 3,000 keen lagu leeyahay haddaad waraaqtan ku siiyo haddii 3,000 waaso waraaqta waa la xasaynay waxaan bilcaan way kulli had meeshtuuran waxay ka wada imaadeen ilma iskuul baa lagu maqan yahay ilmaha wada nuugaan waa kulli wada xambaarsan oo meesh taagan marka dib weyn baa ayaa meesha ka yaala waxay baaq u direen madaxda ismaamulka Garissa ee uu hogaaminayo mudane Cali Bunow Qorane iyo dawladda sare taaganyiin waalidiintii meeshan bay taaganyiin ilmihii iskuulka dhiganayeen meeshan bay taaganyiin dhibkana haast noogu weyn waa ofiiska waraaq dhalashada ofiiska DC ofiiska county commissioner ofiiska governor ofiiska MP ga Garissa maxaan ka codsanaynaa inay ofiiskan talaabo laga qaaday shaqaalahan joogan meeshan cilada ka jirta dadweynaha laga qancay aan leeyahay magaalada markii doorasho la gaarana 100 nin ku imaani ana madax ka noqonay wax walba ku hagaajin lagu leeyahay hal qof oo meesha soo ridda soo istaagana aan la arkaynay magaalada ugu maraytay leedahay waxay leedahay ilaaba koronyaay majority leader oo laga doortay MBA leedahay wax ka hooseeyo madaxna way leedahay waxaan lacag lagu kala qaadanay oo ridda marka soo joogto qofka xafiiska shaqayda ka hor imaani waxaan isku dayay inaan xiriir la sameeyo madaxa xafiiska bixinta warqadaha dhalashooyinka hasa ahaatee wuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo helidda warqadaha dhalashooyinka iyo dhimashada ayaa markii labaad dadweynaha waxay ka sheeganayaan musuq baahsan oo ka dhex jiro xafiiskan taasi oo horseedi karta inay meesha ka baxdo u adeegidda shacabka Bashiir Axmed Dhaqane Honkebel TV Garissa